muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idinku la wadaago maxay tahay sababta Mareykanku habeenkii saddexaad uu u joojiyay duqeymihii uu ku hayay wadanka Iiraan. Ma hub la'aan jirta mase dadaal diblomaasi ayaa socda. Maxay tahay sidoo kale sababta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay u qiratay in qaar ka mid ah gantaalada iyo diyaaradaha droniska ee Iiraan ka imaanayay aysan gantaaladooda difaaca aysan qabanaynin oo ay u ogolaanayeen in ay gudbaan isla markaana khasaare ay geystaan. Arrintaasina maxay tahay waan idinla wadaagaya iyadoo aan ognahay in Congressku uu toddobaadkan ku kala qaybsamay in la joojiyo dagaalka Mareykanku uu kula jiro Iiraan iyo weliba in kale. Maxay tahay sidoo kale sababta website-ka wasaaradda gaashaandhigga ay dhimashada ciidamada Mareykanka ee 18 askari ay u kala qaybsan tahay oo afartii dambe aan loogu daraynin dagaalkan Iiraan. Tirada ciidamada ku dhaawacantay Mareykanka dagaalku uu kula jiray Iiraan oo shaaca laga qaaday isla markaana korortay. Arrimahaasi oo ayaan idinla wadaagaya. Waxaan ognahay dagaalkan dib u bilowday ee Mareykanka iyo weliba Iiraan in hadda 2 toddobaad ka badan uu socday. Mareykankuna uu si ba'an u duqeynayay Iiraan isla markaana Iiraanna ay duqeynaysay saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay bariga dhexe haba ugu darnaadaan Urdun, Kuwait iyo weliba Bahrain. Marka wararka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayeen marka in hadda 3 habeen ee la soo dhaafay Mareykanku uusan duqeynin Iiraan isla markaana waxa arrintaasi loo sababeynaya in hubya Iiraani ay jirto oo Mareykanka kaydkii uu gabaabsi ka yahay amaba uu ka dhamaaday. walow madaxweyne Trump uu leeyahay hub yaraani ma jirto oo hub waan haysanaa laakiin waxaan doonaynaa inaan haddana dadaal dhinaca diblomaasiyadda aan fiirino. Laakiin wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay in Mareykanka hub yaraan aad u darani ay haysato. Marka inay hub yaraan jirto waxa caddayn u ah maanta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagonka waxay heshiis la gashay company la yiraahdo L3 Harris kaasi oo sameeya waxyaabaha muhiimka ah ee ku jira gantaalada difaaca ee Patriot la yiraahdo. Heshiiskan marka oo 7 sano soconaya wasaaradda gaashaandhigga ay company-gan la yiraahdo L3 Harris ay la saxeexatay waxa muhiimadiisu ay tahay in gantaalada difaaca gantaalada kale ee ka hortaga ee la yiraahdo Patriot-ka in Mareykanka uu gabaabsi ku siiyahay isla markaana company-gan heshiiska lala galay waxay tahay in uu dedejiyo waxyaabaha muhiimka ah ee gantaaladaasi Patriot-ka ku dhex jira oo dhowr nooc ah. Marka taasi waxay muujinaysaa Mareykanka marka in gantaaladii difaaca ay ku sii yaraanayaan taasina ay sabab u tahay hakinta hadda dagaalkii iyo duqeyntii uu kula jiray wadanka Iiraan. Marka maanta oo Isniina ayaana wasaaradda gaashaandhiggu ee heshiiskaasi oo 7 sano soconaya ay la saxeexatay company-ga la yiraahdo L3 Harris. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa maalin ka hor waxa ay qiratay in militariga Mareykanka si ula kaca uu u fasaxayay gantaalada iyo diyaaradaha droniska ee dhinaca Iiraan ka imaanayay sababa la xiriira in gabaabsi ay yihiin gantaaladii lagu difaaci lahaa. Marka halkaasi waxaa ka muuqata in hub yaraani ay jirto oo weliba wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay qiranayso. Inkastoo madaxweyne Trump uu arrintaasi beeniyay laakiin waxa wasaaradda gaashaandhigga wararka laga helaya ay sheegayaan in gantaalada qabta gantaalada iyo diyaaradaha droniska oo Iiraan ay soo tuurayso gaar ahaan kuwa la yiraahdo Patriot iyo weliba THAAD in ay gabaabsi yihiin. Sidaas darteedna droniska iyo gantaalada ka imaanaya dhinaca Iiraan kuwaasi oo aan ku wajahnayn meel ciidamo Mareykan ay ku sugan yihiin. Macnaha haddii ay meelo kale oo hanti ay taalo Mareykanka waa la fasaxaya laakiin dhimashada ciidamada Mareykanka kuwa ku soo wajahan oo kaliya ayaa laga qabanaya ayay leeyihiin. Sidaas darteed waxaa qiimeyn la sameeyay hadda ay muujinaysaa in 1200 oo gantaalada Patriot-ka ee interceptorska isla markaana qabta diyaaradaha droniska iyo gantaalada Iiraan ka imaanaysay in horaantii dagaalkan intii uu socday ay Mareykanku uu isticmaalay mana jirin bedelkoodii in la bedelay. Waxaan ognahay hadda toddobaadkii la soo dhaafay in wasaaradda gaashaandhiggu 1 bilyan iyo bar ay ka dalbatay Congress-ka gaar ahaan lacagtaasi waa lacagta guud ahaan laakiin 67 bilyan oo degdeg ah ayaan u baahanahay yiraahdeen waa tii wasiirka dagaalka ama gaashaandhigga Pete Hegseth su'aalo kulul ay weydiiyeen
oo dagaalkan la xiriira isagoo sheegay 37 bilyan ka badan in hadda dagaalka intii uu socday ay ku baxday marka sida muuqata Mareykanku dhinacna waxa uu ka leeyahay hub yaraaninna ma hayso dhinacna waxa uu leeyahay gantaaladii difaaca ayaa naga yaraada sidaas darteed waxaan ogolaanay in diyaaradaha droniska iyo gantaalada dhinaca Iiraan ka imaanaya aan fasaxno kuwaasi oo aan u aragno inaysan dhibaato gaarsiinaynin ciidamada Mareykanka laakiin hantida haddii dhibaato ay gaarsiinayaan macnaha waan fasaxayna ayay leeyihiin sidaas darteed waxaan ognahay hadda Khamiistii in Kongareeska Mareykanku ay u codeeyeen in dagaalkan la joojiyo aqalka wakiiladuna ay yiraahdeen hal la joojiyo sanadkuna ay yiraahdeen ha sii socdo oo lagu kala qaybsamo sidaan ognahay labada aqal xisbiga Republikaanka oo madaxweyne Trump uu ka tirsan yahay ayaa aqlabiyadda iska leh 214 xubnood oo aqalka wakiilada 210 xubnood oo dimuqraadiyiin iyo 4 Republikaana ayaa waxay yiraahdeen dagaalka waa in la joojiyaa ciidamadana waa in dib loo soo celiyaa 208 xubnood oo Republikaanana waa ay diideen oo waxay yiraahdeen dagaalku ha sii socdo 4 xubnood oo Republikaana ayaa dimuqraadiyiinta ku raacday sanadka ayaa isla maalintiiba loo gudbiyay sanadkana 47 ayaa waxay yiraahdeen dagaalka hala joojiyo 49 waxay yiraahdeen ha sii socdo waliba Susan Collins oo xisbiga Republican ka tirsan oo Maine laga soo doorto ayaa dimuqraadiyiinta ku raacday walow Lisa Murkowski iyo sidoo kale Randy Paul oo Republican oo Kentucky iyo Alaska laga soo doorto ay ka aamuseen oo Republican oo aysan codeynin marka sida muuqata Kongareesku arintaasi waa ku kala qaybsan yahay madaxweyne Trump sida sharciga awoodaha ee dagaalka oo madaxweynaha awood u siinayo oo la yiraahdo War Powers Act of 1973 ama 1973 oo Kongareesku uu meel mariyay dagaalkii Vietnam kadib madaxweynuhu waxa uu awood u siinayaa in 30 maalmood oo dagaal qaadi karo markaas kadibna ay tahay Kongareeska inuu ogolaasho weydiisto laakiin sida muuqata hadda Kongareeska wax ogolaasho ma uusan weydiisan dagaalkuna 5 bilood ayuu hadda u dhamaatay marka sida muuqata Kongareeskana arintaasi waa ay ku kala qaybsameen dagaalka la joojiyo ciidamada Mareykanka dib loogu soo celiyo dalka Mareykanka oo dagaalkaasi gabi ahaanba halkaasi lagu hakiyo marka sida muuqata Mareykanka dagaalkan waa ku daba dheeraaday doorashooyinkii xilliga dhexe waxa ka harsan 3 bilood oo kaliya shidaalkii cirkaasi ayuu sii galaya average ama isku celcelis ahaan $4 ayuu maraya saas oo kale waxa muuqata in shacabka Mareykanka ay noloshii ku sii qaaliyoobayso waxa la leeyahay qoys kasta oo Mareykana bishii lacagtii u isticmaali jiray lacag 1200 ka badan ayaa ku korortay marka sida muuqata dagaalkan siima socon karo maamulka madaxweyne Trumpna dabka man ku dhaca mise waa ka turkay xaalkoodu maraysa sidoo kalena dhibaatooyinka ciidamada Mareykanka soo gaaray wasaaradda gaashaandhigga hadda waxay xaqiijisay in 600 ka badan ay ciidamada Mareykanka uga dhaawacmeen intii dagaalkan uu socday ku dhawaad 624 xubnood ayaa ku dhaawacantay ayaa la leeyahay ilaa iyo 25kii bishan oo hadda 2 maalmood ka hor ahayd waxa sidoo kale ciidamadaasi kamid ah 417 oo ku dhaawacmay xilligii howlgalkii Epic Fury oo socday waa qaybtii koobaad ee dagaalka intii xabad joojintii heshiiskii isfahamka aan la gaarin 207 askarina waxay ku dhaawacmeen hadda dagaalkii labadii toddobaad ee la soo dhaafay socdo oo waliba wasaaradda gaashaandhiggu ay kala qaybinayso waxay leedahay hadda 207 xubnood waxay ku dhaawacmeen overseas operation macnaha wadanka dibadiisa howlgaladii ay u joogeen ayay ku dhaawacmeen macnaha dagaalkan Iiraan ay kula jiraan askartii ku dhimatay ama askartii ku dhaawacantay waa la kala qaybinaya wasaaradda gaashaandhiggu waxay leedahay 417 howlgalkii Epic Fury oo 28kii February bilowday isla markaana sidoo kalena heshiis xabad joojina la gaaray bishii Abriil 8 uu dhaqan galay ayay ku dhaawacmeen 207 waxay ku dhaawacmeen howlgallo kale oo wadanka dibadiisa ciidamada Mareykanku ay ka hayeen sidaas ayaa loo kala qaybinaya sidoo kale dhimashada ciidamada Mareykanka soo gaartana waa la kala qaybinaya hadda 18 askari ayaa Mareykanku u qiranaya walow Iiraan ay leedahay intaas waa ay ka badan yihiin oo shacabka Mareykanka ayaa laga qarinaya laakiin waxa ay leedahay hadda wasaaradda gaashaandhigga website-keeda ku qoran in hadda Epic Fury aan askarta ku dhimatay howlgalkaasi 14 ay yihiin 40 askari oo 3 kamid ah Urdun ay ku dhinteen midna Ciraaq uu ku dhintay hadda toddobaadkii la soo dhaafayna waxa ay leeyihiin howlgal sida ciidamadii dhaawacmo kale howlgal wadanka dibadiisa ciidamada Mareykanku ay ka hayeen ayay ku dhaawacmeen marka waa la kala qaybinaya wasaaradda gaashaandhigga website-keeda ayaaba sidaasi ay ku kala qoran tahay oo waxa muuqata in laba qaybood laga kala dhigayo ciidamada Mareykanka ee dagaalkan iyagu ku dhaawacmay marka sida muuqatana Mareykanka hadda waa uu joojiyay duqeymihii 3 habeen ee la soo dhaafay Iiraan uu ku hayay Iiraan iyaduna dhankeeda waa ay joojisay hadii aan wax lagu soo tuureynin anaguna waxba soo ma tuureyn marinka Hormuz waxaan ognahay markab
shalay shidaal siday inay meena kula qaraxday kadib markii uu iska dhigatiray amarka dowladda Iiraan oo ah halka aan maraakiibta inagu aan ugu talagalnay inay maraan waa inay maraan kii ka leexda wixii ku dhaca anagu kuma dhigin waa markibkii ugu horreeyay marka ilaa hadda dagaalkan intii uu bilaabmay ay meena kula qaraxdo marinka Hormuz waxaan ognahay markii hore diyaarado daroona ama gantaalo ayaa Iiraan maraakiibta ay kusoo tuuraysay baabulmandab arrinta ka taagan waan ognahay xuutiyiinta iyo sacuudiga dagaalka ka dhaxeeya oo xuutiyiintu ay yiraahdeen markab shidaal ka soo qaaday sacuudiga halkaasi ma mari karo maraakiibna ay gantaalo ku dhufteen kuwo kalena ay iska laabteen marka labadii meel ee shidaalka caalamka uu kala gooshayay haddii hadda dhuunta la qabto caalamku waxay tahay macnaha in cunaqabateyn rasmi ah ay caalamkii saaran tahay marka isagoo Trump ku wareersanaa arrintan Hormuz iyo Iiraan ayaa haddana xuutiyiintii iyo baabulmandab ay soo baxeen marka xaaladdu meel xun ayay maraysaa madaxweyne Trump maalmihii lasoo dhaafay gulihiisa amniga qaranka ayuu kulan la lahaa madaxweynuhu waa kii ku hanjabayay weerar aan horay loo arkin ayaan Iiraan ku qaadayna laakiin sida muuqata Mareykankii hub la'aan ayaaba haysato isagaa dhahaya gantaaladii iyo diyaaradihii daroonka oo Iiraan ay soo tuuraysay qaarkood waxaan si ula kaca aan u fasaxnay inay nagu soo dhacaan haddii aysan waxyeello gaarsiinaynin ciidamada laakiin hantida kale waxyeello ha gaarsiiyaan maxaa yeelay gantaaladii difaaca sida THAAD iyo Patriot ayaa Mareykankii ku sii yaraanaya Congress-kiina lacag waa u diidan yahay wasaaradda gaashaandhigga 67 bilyan oo degdeg aan u baahanahay guud ahaan wasaaradda gaashaandhiggu 1 bilyan iyo bar ayay u baahan tahay laakiin Congress-ku wuxuu yiri wartamirtii horeba dib loo waaniyo hadda ayaaba xaalku uu jiq yahay marka bal waan arki doonaa xaaladan halka ay ku dambayso laakiin sida muuqata maamulka Trump xaaladdu waa ay ku xun tahay dagaalkan ma sii wadi karaan mana joojin karaan oo guuldarro ma doonayaan inay qaataan oo Iiraan ayaa naga adkaatay ma doonayaan inay dhahaan laakiin si wadistii dagaalkiina xaalad ayaa ka taagan wasaaradda gaashaandhigga lacag ma haysato gantaaladii la isticmaalay hubkii dhinaca kaydka Mareykanka lama bedeli karo maxaa yeelay waqti ayay qaadanaysaa sanado fara badan in hubkii la isticmaalay dib loogu soo celiyo kaydkoodii marka waxaa la leeyahay Mareykanku markii hore intuu